deeqa maxamed nuur waa gabar da'yar oo ku dhalatay dalka Ingiriiska sanadii 1994 waxayna ku barbaartay isla dalkaasi waxbarashadeedii hoose dhexe waxa ay ku qaadatay Durham Primary School sanadii 2000 ilaa 2006 Charles Edward Brock Secondary waxa ay ku dhameysatay tacliinteedii asaasiga ah intii u dhaxaysay sanadii 2006 ilaa 2010 waxaan ku dhashay magaalada Ingiriiska London si khaasatan waxaan dhashay 1994 London aan ku dhashay run ahaantii aniga London waan ku soo barbaaray dugsiga hoose dhexe sare kulli Ingiriiska ku soo dhameystay ilaa aan ka soo gaaray adig 15 xagga lagu dhameeyay dugsiga sare inta kadib deeqa oo ah qof maskax furan waxa ay bilowday barashada diinta islaamka iyo luqadda carabiga waxayna u soo guurtay iyada iyo hooyadeed sanadii 2011 dalka Masar halka oo ay ka gashay jaamacadda Azhar Masar 2 sano soo joogay 2 sano aan soo joogay carabiyan soo bartay dugsi oo sare yani igu qoreen maadaama aan yaraay waqtigaas Azhar dugsiga sare aan ka soo dhigtay wax dugsiga sare Azhar marka meeshaan ka soo dhameeyay aan kuugu daray deeqo waa xaafidul quraan haddana ah qof abwaana oo curisad gabayada Ingiriiska gabayada wallahi si oo hal mar surprise amal igu dhalatay inaan yani aan tiriyo qof kastaba si ay ugu imaadaan laakiin qisada oo dhanka gabayaha waxay iga imaaday computer oo hor yaalo oo saacadooyin badan oo fursad ah haystay waxaan is dhahay in badan deeqo buug waa akhri jirtay horta wiliga ma isku dayday inaan wax qorto waxaan bilaabay marka waqtigaas fursada aan haystay inaan wax iska qoro mar walba aan wax sii qoro marka waxa igu soo dhici jirtay in fududaahooso qoraalkaas kulama ay sii fududaado waxaan arkay waxaan wax aan suubi karo waqtiyada oo fursad aan heli karo inay tahay waxayna ka dooratay inay dalkeeda wax ku barato iyada oo heli karta inay wax ku barato dalkii ay ku barbaartay oo England balse deeqo ayaa aaminsan in waxbarashadu macno weyn ku leedahay dalka Soomaaliya oo ah dal burbursan dadkiisuna ay hardamayaan waxaan go'aansaday inaan xamar u soo guuro oo hooyaday la soo dawo xamar imaaday waxaan arkay arday badan oo buugaag iyo qalimaan wataan oo saacadooyin badan wax aqriyayaan oo dadaalayaan waxay u dhalisay inaan ka fikiro waxbarashada qiimaheeda aad aan ula yaabran ahaantii waayo Ingiriiska markaan joogi jiray dadka dhan way iska qoslaan sheekaystaan shaleeme iska aadsanayaan waxbarasho sida badan ka maqan dadka qiimaha ay ku fadhiis marka waxbarasho ma ogaa jirin wadankan laakiin maadaama wadan burbursan oo yahay qof walba fursad ay raadsanaysaa fursadaasna waxay ogaadeen inay qalin kugu xiran tahay qalin iyo buug in kor loo qaato qof walba oo dunida ku nool waxa uu leeyahay shakhsi uga dhow dadka kale Sumaya Xaaji Cali waa saaxiibta deeqa Maxamed waxayna isku barteen jaamacadda markii ay ku kulmeen deeqa Maxamed Nuur waxay ka mid tahay dadka isku baran isbuuc ugu horeysay jaamacadda Banaadir markii aan bartay waxyaabaha deeqo ugu sii dhaliyay barashadeeda waxa ka mid ah in deeqo maxaa la dhahaa ay tahay gabar ka imaada wadanka Ingiriiska taasoo isiisay ina sii barto deeqo because waxa aniga mar walba isweydiiyay waxa ahayd ardayda Soomaaliya iyagoo waxbarasho wadanka banaankiisa haminayo way ay u ogolaatay iyada inay wadanka gudihiisa ay ku soo laabato isla markaana wax ka barato runtii taas waxay igu noqotay arin samaha waa isdhihi karo waa arin qof ma tahay aysan sameyn karin oo qof ay u baahan tahay qof dadka kale wax ka duwan inay sameyso marka isbaranana deeqo waxa ay soo baxday inay tahay qof dadka kale ka duwan deeqo oo la dhacday Sumaya saaxiibtinimadeeda ayaa si halhaleela uga tirisay gabay kaasi oo ka turjumaya macnaha saaxiibtinimada When I met her people noticed her clothes the confident walk and the strict smile but I was the weird daydreamer that chased unicorns in deserts so I didn't see That changed when the sun chased us both into the shadows of a tree. I couldn't help but laugh that day. I saw the muscles around her cheek quiver as she tried to hold her laughter in. We never asked questions. The string of jokes and random topics broke the dam blocking our lips. Fate sealed us together that day, and nothing could break the fibers that stretched between two souls. I saw the contrasting colors of passion, ambition and kindness moist her words. I saw what nobody saw. The clothes were just a mirage to hide the treasure map locked in her mind. Each day was rigged with crumbs and clues to find the gems she thought she hid well. But I was a daydreamer, I could tell. Tell everyone that I had found a rare jewel in plain sight.
Though people these days have developed lenses far more thickened than mine, they only get to see the world paintings drawn as an outline. I guess that makes me the lucky one, since my vision has rough hands that digs dirt, that molds clay, that steals diamonds from earth with an X-ray. I struck gold when I reached the depths of exploring our friendship. I met a person who spoke the language of my spirit, a form of words that didn't need to be uttered but sketched in the wall of our hearts. We beat in synchrony. Ustaad Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah mid ka mid ah macallimiinta wax u dhiga Deeqa ayaa ku tilmaamay inay Deeqa tahay gabar firfircoon jecelna inay waqtigeeda ku bixiso waxbarashada sidii ay mustaqbalka qayb uga noqon lahayd samata bixinta dadkeeda. Deeqo waxay ahayd gabar waxbarashada aad ugu fiican firfircoon ahna proactive markastana u soo taagneed inay contribution ka geysato waxyaabaha markaas socda oo waaqiciga ah. Marka aan fiiriyo waxbarashadeeda dib u fiiriyo Deeqo waa qof u nugul waxbarashada kana mid ahayd ardadii ugu sareysay fasalka baajka la yiraahdo baaj 13. qof walba marka uu dareemo xaalad ay maskaxdiisa ka shaqeysaa inuu u helo cabirka saxda ah ee uu saari lahaa dareenka uu xambaarsan yahay waana qof isku kalsoon gabdhahana ku boorisa inaysan bedelin midabkooda. gabagan horta wuxuu ka hadlaa wax oo markaan yaraan dhibaato ugu jiro oo Soomaalida yani xitaa dhibaato weyn ku hayso mujtamaca waxa waaye kalarkay markaan yaray familka ama yani asxaabta siiba dadka Soomaali joogo waxay aad igu ay jireen midabka madow. dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay xitaa isdhahaan gabartaan midab madow maxay ka wadaa laakiin Soomaali waxay cadaan u ka sahan ama qurux u ka sahan midab waay runta marka laga hadlo. marka gabagan wuxuu ka hadlaa waxaan koow ka aaminsanaa jiray kalarkayga inuu yani wasakh yahay inuu qurux lahaynin isa marka u soo weynaaday waxa aan ka aamin inuu yahay inay wax dadka ku sheegeen inaan maskaxda aan la gelin oo maraayada qurux adaa fasir karo adi hadaa qurux isku aaminto waa qurxanahay dadka kale inaa warkooda aan qaadin. Dirt, the layers of muddy fossils I wore as my daily cloak, a cloak that draped and covered my body whole. It seeped, melting into my very core, until I was left with nothing more. Some whispered it was a part of me, but others taught me to hate it like the enemy. Skin, the cloak our eyes have been waging war against since time began. They only see a cracked shade of beauty trapped in a tiny can. The forgotten stripes of rainbows have been clipped and torn, left as a broken widow in mourn. Paintbrushes cry into their pillows, hurt by humanity, calling to colors, striving to be free of brick walls built by a menace named society. The prison I thought to be my skin had no right to be accused of any sin. It simply was innocent, guilt-free, a baby born of clean sheets that was shown no love. The guilty stood in the form of words thrown at weak old me. Words like, if you were just a shade of lighter brown, my God, I let that get to me. Whirling sadness carved a deep wound that would not mend, sprouting roots in my mind filled with the true dirt I had yet to comprehend. Since when were colors a math solution to be solved? Which one led and which followed? It's not a world of black and white or even grey. There seems to be many more battles that taint our day. Each color of the rainbow peeling the neighbors just to pave its way. Well, I for one am done fighting my skin away. dunidan oo waayihii dambe sii xumaanaysay bini'aadanimadeeda kamaysan aamusin Deeqo oo waxay ka tirsay gabay saameyn ku yeeshay qulubta dad badan oo aan ka warheynin inay tirsay gabar yar oo ka soo jeeda geeska Afrika. wuxuu ku saabsan yahay bini'aadanimada iyo habka ay dunida ay u suuleyso bini'aadanimada. waxyaabaha oo igu dhalinay inaan tiriyo gabagan waxay ahayd post oo Facebook aan ku arkay cunug yariis oo Suuriyaan ah oo badda ay soo qaaday badda soo tuftay. يعني heerka ay dunida ay gaartay in ay xitaa nafta bini'aadanka qiimaheeda dhanba inuu dhumo iyo marka taas camal waxaas ku saabsantaa marka aad aan ula yaabay markaan arkay postigaas oo cunugaas yariiska oo Suuriyaanka hooyo lahaay aabbo lahaay akiid qaxay ku soo baxeen marka baday ku dhex dhintay biyana waa iska soo tufeen dad caawiyana wuu waayay marka qof kastaba teeday ku mashquulsan tahay camal waay gabagan
bini aadamnimada tartiib u buuxsaa inta dadku ku mashquulsan yihiin calooshooda qaabka ku buuxsan lahaayeen. Humanity has gone missing. I'd like to search, but hope seems to hide under my sleeve. I'd like to speak, but words are prisoners chained in my soul. I'd like to pray, but Satan stands firm guarding his prey. I'd like to wish, but the world looks to busy itself with the next dish. Humanity has left the world, for it cannot bear to look anymore. I mean, how can it stay when a baby's life is cheaper than a rug on my front door? When trees have refused to give us shade because the heat of greed burns hotter than the sun on May. I miss her, but I cannot find her. waxay waqtigeeda qayb ka mid ah ku bixisaa isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho siday u caawin lahayd bukaanada iyadoo sidoo kale wax ka korsata dhaqaatiirta ka howlgasha halkaasi. aqoonteeda iyo kartideeda ku filan hiwaayada dadka bani'aadamka Ilaahay ma simin dadku way kala duwan yihiin laakiin deeq waxaan oran karnaa waxay tahay qof talentiya brilliantiya aad ma taqaanaa u wahmin inay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u soo aada halkan ay u timid inay muujiso ka gungaarto yoolkaasi ay aad u danaynaysaa waana rajaynaynaa mustaqbalka inay ku guuleysato waxaan rajaynaynaa hadday mustaqbalka inay ka mid noqoto macallimiinta kuliyadda ka mid noqoto macallimiinta jaamacadda ka mid noqoto soo gaartay ilaa ay jaamacaddu ka noqoto ma taqaanaa dean iyo rector ay ka noqoto ayaan rajaynaynaa way deel badan ay ku jirtaa waa gabar aan runtii aqoonteeda ما شاء الله بان لeenahay الله barakeeyo oo dadaalayso oo fiican tahay aad baan mataqaan ugu dhiirigelinaa waana waxayna kamid tahay ardayda ka muuqda fasalka ay kamid tahay aad u soo baxaya haddii uu waalidku si xikmadeysan ugu tilmaamo awlaadda ayaa aqbasho si sahlan una hogaansanta amarada waalidka. hooyo Khadiijo Sheekh Cabdullaahi oo ah hooyada dhashay Deeqa Maxamed ayaa gabadheeda ka dhigatay saaxiib si ay ula socoto xaaladeeda uguna tarbiyeyso si sahlan waxayna keentay in gabadheeda ay ku qancin karto wax walba ay u baahato. ilaahay ku suko waxaan ku mahad celinaa horumarka aan gaaray iyo horumarkii mustaqbalka baan gaari doono insha Allah taala. hooyaday macaan Khadiijo Sheekh Cabdullaahi run ahaantii waa qof aad qaali igu ah oo saaxiibtay mar waa hooyaday mar waa yani seen ku tilmaamaa waa xubbigay marka runaantii aad ay u mahadsan tahay hooyaday mana cabiri karo jacaylkan ku qabo. taasoo ugu dambeyntii u suuragelisay inay Deeqo gaarsiiso heer isku filnaansho ah. xiriirkii saaxiibtinimada lahaa ee ka dhaxeeyay Deeqa iyo hooyadeed waxa uu abuuray jacayl aan cabir lahayn iyada oo Deeqa ka tirisay gabay. laakiin waxa ugu fudud adiga aad suubi kartid waxa waaye inaad soo xasuusta wixii ay ku qabatay iyo abaalkii ku gashay inkastoo aabana aan xaqiirin subxaanallah ilaahay xaqiisa uu siiyey laakiin hooyo 3 jeer ka xaq badan ta aabo marka hooyo waxa u tiriyay gabagaasna haddaan aqrin doona. Come along now, I have so much stories to tell you of a splendid tree, a tree that burst with joy witnessing shooting stars. The joy grew loud and turned to laughter, echoes still ringing from hereafter. This my mother plants a seed within me, a seed of diamond with rubies for crowns, more priceless than can ever be. Yes, that seed of love beats with the pace of blood coursing in me. It beats until I'm consumed, until the shooting stars hold little light, for my mother shines brighter. Tingling memories of her warmth embraces my nights. Cracked heels and broken smiles were all I gave back, though her unconditional love forbade her to think like that. My drum of life speaks to a soul nourished by a splendid tree. The drum pants to my flawed soul. Fill her, bind her with a love spell that births roses on top of her splendid tree. Once our fairy tale is done, the birds singing fly free. si aan sharaxaad intaa ka badan uga helo Deeqo waxaan goobtiisa shaqada ku booqday Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ahna macallin haatan u dhiga cudurrada indhaha. Deeqo waalidkeeda ka soo tagtay waxay ku nooshaa xamar waxbay ka bartaa halkaas oo aan caadiga ahayn wlina u dheertaa hal-abuurka waxay kaloo tusaysaa magaalada xamar inay tahay magaalo qofku u imaan karo lagu noolaan karo oo dadkaan kala soocaynin soona dhaweynaysa aqoontaan u leeyahay Deeqo hadda ayaan u dhigaa maadada indhaha waana qof firfircoon oo galaaska dhexdiisa kula sumcadaada wanaagsan waxbarashadeedana jecel
taalentigeeda kalena sii wadata marka waxaan u rajaynayaa guul iyo mustaqbal wanaagsan insha allah ayada iyo qoyskeeda oo go-aankaas gaarana waa ugu hambalyeynaya insha allah tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh waa cabdiraxmaan xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo